dhalinyarada yar ahayn like hadda xataa dhalinyaraan nahay laakiin 5 sano 7 sano 8 sano ka hor markaan dabcan high school ka soo dhameynaynay oo fircooneen talada naga wareersanay ama marka bulsho waxa lagu dhex jiray oo very hype ah bununi maanta dheelay bununi waxa dadka dhalinyarada isdhex ordayso soo maaha laakiin waxa laga yaabaa in qof ka weyn adii 3 sano 4 sano ka horeeyo ama 2 sano ka horeeyo oo jaamacadda marka ka fasal horeeyo in aad mar walba la fadhiisatid maadaama aad adiga jeclaysatay habnololeedkiisa ama aad ka dhex aragtay mustaqbalka sidaa jeclaan lahayd inaad u noolaato oo marka mar walba aad la fadhiisatid sadiiqniiho jaamacadaad bartay see ku bartaa waa shaqaystaa see ku shaqaysataa oo marka asaga qofka ah uu isleeyahay cunugan ama qofkan saaxiib walaalka ah garab sii oo beri ka maalin si uu wax u noqdo soo saa saaxiibtina ma geli karto because aniga waxaan xasuustaa markaan jaamacadda bilaabay yar aan high schoolka isla dhigan jirnay oo 2 fasal iga horreeyay inaan jaamacadda iskula kulanay axmed al dhihi jiray Nairobi University anigoo jaamacadda dhex wareersan oo taymta wax walba iga khaldan yahay uu ii fadhiisay saana loo dhigtaa jaamacadda saana fasalaha loo qaataa noloshayda uu ii sahlay 2 sano 3 sano jaamacadda dhiganayay taladiisa mar walba ku socday oo garab u siin jiray marka assignment ka garan waa ama research ka si loo sameeyo ama buugta u baahanahay mar walba asaa u jira Axmed waxana u baahanahay maxaa qaban karaa uu ila talin jiray markii laga soo baxay maanta dhalinyaro iga yar 2-3 sano oo aniga aan garanayo sidoo kale ila soo xiriirayo oo dabcan isleh horumarka ama zikri maanta kaalintu taagan yahay waa waxa aan barjacaan lahaa inaa gaaro marka uu ku soo raadiyo aniga yarka iga yar waxa aniga ka faa'iidayo malaha ama lacagna igu caabinayo talana igu caabin wax igu caabina malaha laakiin jacayl ama wanaag aan doonayo in asaga marka horumar aan ku gaarsiiyo inaan mar walba dhahayo haddii aad wax u baahatay la soo xiriir inta wax laga helaa buugtan aan hayo saana wax loo qabsadaa ilaahay ka cabso dariiqan ha ka dhumin waxaan qabso ayadu saaxiibtinimo ma geli karto way geli kartaa muddiidan fikirka waa fikir wanaagsan sax saaxiibtinimadu way geli kartaa waana marxaladda ugu fiican sax balse haddii aan isla barbardhigno aniga waxaan ula jeedaa fikirkeyga oo ah qofku inuu wax kaa faa'iido waxaan ula jeedaa in waxaa noqonin keliya midka wax faa'iido noqo mid xilliyada qaar wax laga faa'iido mar walba haddaa wax faa'iidayso waxay noqonaysaa markii faa'iidada aad gaarto ama wixii qofku uu ku siinayay markii waxaas markii kuu dhammaato xiriirkiina halkaas buu ku dhamaanaya inaad tashato xiriirkiina halkaas ku dhamaanaya ma garatay which means si aad qofkan uwada joogtaan oo xiriirkiina uu noqdo xiriir xidid leh uu noqdo xiriir dheer isagoo yani mar walbana aad noqotaan laba qof is xiriirin karo waa in aad labadiina wax kala faa'iidaan kaliya ma in adiga wax laga faa'iido xilliyada qaar waliba ha yaraatee in xun laga faa'iido si qofkan xididka saaxiibtinimada u adkaato sax pointkaas ani okay dhankaas waa ogaa inaad saas u wada laakiin in la iswareysto qasab waa soo okay midda aad su-aasha aana weydiisay qofka dembi ma kugu tahay inaad marka hore adoo wuxuu u sheegay ka carirtid Soomaalida oran marka koowaad hadduu qofka saaxiibka oo xumaado oo aragtid inuu sii xumaanayo weliba uu xumaado uu xumaato dhex galo oo waxba u sheegin oo iskaga tagtid dembi way kugu tahay maalinta qiyaamana lagu weydiinayaa sababtoo ah Nabi sallallahu alayhi wasallam mas'alada markii loo soo dhiibay dadka dhan wuu gaarsiiyey dad badanaa soo raaceen wax badan wuu waaniyey gaalo wuu waaniyey mar walba uu sheegi jiray muuna ka cabsan jirin waxaa lagu leeyahay diinteena marka meesha marka socdo qof gabar si xun u labisan hadaa aragto waa inaa wax u sheegtid waxay rabtaa ku dhahdaa ha ku ceeso Nabiga sallallahu alayhi wasallam dhibku ka soo maray diinta anaga waa wada ognahay hadda wax la isku sheegayo ma hal lagu caay wax walba hal lagu dhaw qofka wax u sheeg qofka nafta kaama qaaday waa qof bilaadan ka wasii daran qof saaxiibka oo ku dhawaa oo xumaaday waa inaa wax u sheegtid oo u sheegtay hadduu ku diido waad maxay ahaydee waad ka danaysanaysaa oo waad iska deynaysaa ma aho inaad marka hore ka tagtid waa inaa waanisid hadduu ku diido uu ku fahmo waa ka tegaysaa sababtoo meel xumaan lagu sameynaya haddaa dhex taagan tahay oo xumaanta iska daaya dhahdid oo kari weyso diinteena waxayna faraysaa inaan ka dhaqaaqdo oo ka dhex baxdo xumaantaas qofka saaxiibka haddaa aragta inuu isbedelayno waad ka sii soconaysaa adigana noloshaada raacanaysaa ilaahina waa u baryaysaa inuu asagana Allah subxaanahu wa ta'aala soo hanuuniyo yani midaasaa fikradaasaa qabaa tusaale yar ku siinayaa oo ku saabsan su-aasha ay weydiisay jawaabteeda Nabi Nuux wiil buu dhalay wiilkaasi Allah subxaanahu wa ta'aala buu kufriyay idan asagoo risaalada ugu yeeray markii la halaagay Nabi Nuux waa la canaantay kani anigu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri wiilkaada anigu uu kufriyay maxaad ugu baaqaysaa oo like mikii la halaagay wiilkiisana wuxuu ku jiray marka ummadii la halaagay idan marka Nabi Nuux marka lama qabsanayo in wiilkiisii oo mataqaantaa maadaama uu ku kufriyay Ilaahay yani ficilkaas u sameeyay ama go'aankaas ku dhaqmay ama dhaqankaas ku dhaqaaqay ma la weydiinayo laakiin kaliya waxa la weydiinayo waxay tahay wax uma sheegtay idan saaxiibkaaga hadduu xumaado oo aad wax u sheegtay
aad dhahdo nin waxaan sameynayso way khaldan yihiin wax wanaagsan ma ahan ka leexo hadduu qaato waa khayr hadduu qaadan waayo yacni camalkaasi ku dhaqaaqay adiga ma lagu weydiinayo saaxiibtinimada hadda saa u falanqeynay ama annaga ahaan fikradda waxaa ka aaminay oo ah qofka nolosha la wadaagayo oo mar walba garab taagan oo nolosha isla qaybsadaan waxaa u malaynaya inay adag tahay ama qofka muslimka ah oo yacni diinta islaamkii si fiican u haysto in ay ku adag tahay arrinta ayada ah oo because waa ognahay waxyaalaha ka dhex imaan karo fidnadana hadda say u badan tahay marka ani waxaan aaminsanahay labada qof haddii isla shaqeeyaan oo xiriir wada shaqo ay dhex taalo oo ay asxaaba yihiin waa xiriir shaqa taas asxaabtinimo maaha haddii ay barasho wada dhex taalana waa xiriir waxbarasho oo asxaabtinimadooda waxbarashada ku salaysan tahay idan beri kamaan haddii ay shaqadii ay dhammaato ama waxbarashadii ay dhammaato waxyaale iskugu imaanayan ma laha ilaa waxaa maalaa yacni ka ahayn 90% marka waxaa u maleynaa aniga in ay adag tahay dabcan qofka inuu qof haddaa hadaf gooni kale sideedaba rag iyo dumar hal meel ma wada geli karaan haddaysan ahayn laba qof oo yacni dhiig ahaan isxigo ama laba qof oo xalaal isku haddaysan ahayn hal meel ma wada geli karaan waxaa ula jeedaa mar hadday timaado saaxiibtinimo waxay noqonayaan laba qof oo in badan wada xiriiro oo nolol maalmeedka ka shaqeysta waxyaalo badan ka wada hadli karo sidoo saaxiibtinimo waxay ku dhisantahay waxay tahay in noloshaada waxa quseeyo ama waxa muhiimka adiga ku quseeyo inaad qofkan kale la wadaagi karto aad isla falanqeyni kartaan maadaama aad tihiin laba qof oo haddana yacni raggii dumar kale ah waxyaala qaar kama sheekaysan kartaan waxyaala qaarna ma isweydiini kartaan waxyaala qaarna talama iskaga darsani kartaan idan sideedaba haddii dan gooniya iskugu timaadeen ama shaqo ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto haa waa wax halkaas intaas kooban ama shaqadaas ku eg ama dantaas ku eg idan hadday timaado marka saaxiibtinimo may noqon karaan raggii dumar way noqonayaan laakiin waxay ku noqonayaan waxay tahay marxaladda marka ay ku sugan yihiin ama shaqo ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ku dhisan xiriirka marka dhex yaalo yaa laakiin haddii ay noqoto labada qof maadaama ay jiraan dhalinyar badan oo rag iyo dumar saaxiibo ah qaacido waxaa jirta oranayso haddii rag iyo dumar saaxiibo yihiin in badanna saaxiib ay ahaayeen mid ka mid a baa waxaa wax xiriir ku dambe ama jaceyl ku dambeeyaa ka wadaa dareen qof kale oo haya yaa halkaas oo bahan haa rag iyo dumar saaxiibo may noqon karaan aniga anoo dhanka diinteena fiirinayo waxaa leeyahay maya sababtoo ah macquul maba ahanba midaas ajnabi baa kala nahay ajnabina soomaali haddaana waxaa loo aqaanaa gaalada bis ah balse rag iyo dumar oo isla dhalanin oo waalidna ku ahayn ajnabi ay kala yihiin gacmo islama geli karaan islama fara ciyaari karaan marka saaxiib meesha markuu soo galo best friend ama close friend waa qof like hataa markaa wuxuu sheeganaysa waa inay isku soo dhawaatiin gabdhaha hadda say sameeyaan waa inay saag fadhiistaan waa inay gacmaha isla galaan marka nin rag iyo gabar dumar ah ma waxaas ma sameyn karaan gabadha haddii caadi ka dhigatana wiilka maxay ahayd caadi kama dhiganayo sababtoo allah subxaana watacaala ee dareen ku abuuray midaasuuni allah subxaana watacaala nooga digay uu noo diiday inaan wiil iyo gabar inay saaxiibo noqdaan waxa hadda meel walba best friendkeyga lagu haayo qalad waay midaas gabar dhan la qabaa best friend ku hayso gabar nin bil kadib guursan rabaa my best friend ku hayso nin kale qalad waay waxaas waa waxa guryaha dudubinayo marka aniga waxaa leeyahay gabar iyo wiil best friends ma noqon karaan best friend haddaa u baahan tahay waalidkaaga ka dhigo waalidkaaga ayaa best friend kugu filan jalango qof kasta uu garanaa oo hadda noqday xildhibaanka programka uu soo sii deyn jiray aroortii soo geli jirtay wuxuu ka hadlayay saaxiibtinimada wuxuu dhahay saaxiibka waa hanti waa investment wuxuu tusaale kusoo bixiyay wuxuu dhahay maanta adiga haddaa 100 kun u baahato imise qof inaad wacdo dhigi kartaa niyow 20 kun u baahan ama 50 kun oo isla markaa kusoo diri karo sax yacni kalsooni intee in la eg adiga horta aad ku qabtaa inaad qofkan wacan karto aad ku weydiisan karto intee in la eg aad ku karsoon tahay markii aad wacdo in uu ku garab istaagi karo marka saaxiibo badan oo noocaas way jiraan haddii aad adiga dabaqada ay saartid oo aad isdhahdid aniga saaxiib waxaa noqonayaa noocan ah saaxiib noocanna basaa ii qalmo oo aan raadsanaya dadka markay dibadda aadaan horta midda koowaad aanan anaga fahansanin oo aniga waqti badan aan fahansanin oo hadda dhow aan fahmo waxaa waaye waqtiyahana kala duwan sax yani hadda annaga waxay noo tahay galab waxa laga hadda aroor inay ayaga u tahay annaga markii habeenka noo tahay yani waqtiyahan in ay iskeeni waayaan midda koowaad midda labaad dadkeena inta jooga in aan free time badan leenahay
qofka hadduu jaamacad aadaa jaamacad bas uu aadaya noloshiisa kale uusan ka walwal qabin qofkii shaqeynaya shaqo bas ay tahay laakiin qofka dibadda joogo in dabada looga jiro oo shaqeynayo oo yacni shiftiyaal badan uu galaayo oo jaamacad uu ku jiro oo biil laga sugaayo marka noloshiisa ay jaam tahay marka aad adiga isbuuca shaqeynayso imis qof kusoo wacdo aad hilmaanta inaa wacdo adiga muxidiin ahaan way badanta soo maaha waxaa laga yaaba marka qofka noloshiisa marxaladuhu ku jiro in ay u sababi weyso in uu markaa kula soo xiriiro ama xiriirkii meesha aad kala taagnaydeen inuu soo socon waayo marka oo aadan ku laawamin ama aadan ku daninin aadan dhihin marka halkaas tagay dollarku diidan yahay inuu iisoo diro okay horta saaxiibtinimada qof walba uu soo maray iyo saaxiib uu soo sameeyey saaxiib markaa sameynaysidna saaxiibo badan inaad soo sameyso maahan 2 ilaa 3 oo close friends best friends isku jiraan marka hore horta best friends close friends way isku dhadhow yihiin yaa ka jawaabi kara horta su-aashaas close friend wuxuu noqon karaa ma ka jawaabi may adii noo sharax okay close friend somehow way isku dhawin best friend waa qof oo isku dhawdiin oo wax walba u sheeganaysid oo waa saaxiibka ku dhow qaaska ku ah oo waxyaalo badan adii noloshaada u sheegatid close friend wuxuu noqon karaa qofka waxyaalo badan oo noloshaada ku saabsan oo dad dhan aysan ogeyn macal familkaaga laga yaabaa wixii ka ogeyn inuu ogyahay close friendkaas qof walba uu soo maray wuu yeeshtay balse ani hadda horta teeda ka hadlo run ahaantii ani close friend weliga ma yeelan baa u maleeya asxaab waa soo sameeyey saaxiibo waa soo yeeshay waqtigayga dugsiga iyo ilaa iskoolka asxaab waa soo yeeshay horta iskool dhanaan dhigan jiray gabarba saaxiib lameen runta haddaa sheego marka iskool dhigan jiray because primarygana waa yaryareenoo meeshaas kusoo dhameys high school markaa imaadan asxaab badan waa lahaa balse gabar close friend aan ahayn ma jirto oo isla soo yeelan weligeen wiilna ma jiro diinteena nooma banaynayso asxaab unbaa lahaa dhihi karaa markii lasoo socdayna dadkii dugsiga isla soo marnay oo waxba isla baranin laakiin baan close friends isku ahayn oo isku dhaweyn 2 qof meelahaas markii dambana dee qof walba noloshiisu geesu raacdo waa la kala mashquulay horta ani qof ma eedeynay qof walba dhinac buu u mashquulay qaar way guursanayaan qaar shaqay ku mashquulayaan qaar dibadda aadayaan dadka dibaddana maanta way shaqeynayaan waxbarasho u ordaan intay u ordaan ma fiicna horta qof aad isku dhowdiin oo saaxiib soo aydan inaad ilowdid oo sababta qofka horta markuu dibadda aadamo inuu iska dhaadhacsiiyo qofka wax buu ka rabaa saaxiibtinimada in la ilaaliyaa wanaagsan dadka xagga markay aadaana waxay ka fikiraan noloshooda qofka Afrika joogo inay dhibaato u keenaan iyo su'aal iyo waxaas ayagoo ka cararayaan bay qofka gooyaan ani midda aaminsanahay midda kale dadka Afrika isla joogana waxay u kala tagaan ayagana waa nolosha wax kale ma dhihi kari midda kale labada qof hadee ma aragtay saaxiibtinimadooda ay run tahay oo mid Allah subhanahu wa ta'ala ku xirneed cabsidiisana ay tahay oo wax isla soo qaban jiro oo qofka ku soo garab istaagnaan jira mar walba saaxiibka lagu sheegayna horta waxa waaye qofka markii amurugsantay xilliga amurugsantay oo xaalad xun ku jirtid qofka ku soo garab istaagun baa saaxiibka runta ah saka baa dhigana saaxiib run ah qofka meel kasto aad kuma iloobayo qofka ma inaa xoolo siisid ama wax siisid hadal wanaagsan iyo inaad dejisid oo waana aasisid bas qofka anfacayso marka qof walba soo marana waa soo maray haddana alxamdulillah wax naga maqan malo asxaab baa leenahay baa dhihi karaa laakiin ad friendship kaale ilaaliyaa leeyahay waxaa soo xasuustay dhanoo xikmad miya mase hadal caadiga miya mase hadal soomaaliyeed miya mawduucan hadda quseeyo in saaxiibadu ay kala fogaadaan markii ay mid ka mida magaalo ka duwan ama waddan ka duwan uu tago xikmaddu marka waxay tahay raggu waqti baa kala geeyo bilmacna waxaa ula jeedaa labada qof say saaxiib u yihiin heer waxaa la gaari mid ka mida ama labaduba ay kala mashquulaan waxyaala ay u gooni ah sidoo kaletana ereygaas waxaa raacsan raggu waxaa kala geeya waqti dumarna waxaa kala geeya nin bimacnaa qofta dumarta waa la guursanayaa waxay noqonaysaa qof mashquulsan caruurteeda gurigeeda ku mashquulsan oo laga yaabaa nolosheeda dhan ay bedesho oo ninkaasna uu bedelo ama gurigaasna mashquulkaas ay halkaasi nolosheeda kusoo koobnaato ida marka maasuda marka waxay tahay maasuda marka waxaa ugu magacdaray adigaa mudan saaxiib waxaan isdhihi karaa waan keliya waxay qeexaysaa qofka saaxiibtinimada mudan ama qofka saaxiibtinimada wanaagsan leh ayay matalaysaa maansadani waana maanso aan anigu qoray marka sidin bay ku bilaabanaysaa goortaan ku bartay saaxiib baan kaa dhigtayo tusaale baad ii noqotay kolkaan cabaar wada soconnay danteeda imaadan seejino salaadna mari baad tiri waayaha adduun iyo walaac kama dhammaado
saaxiib garab isiiyo taladana ila rogrogo markay guul ii sugnaato saaxiib sacabka ii tumo hambalyana ii soo diro saaxiib aan la qosloo la ooyo wacyigana i xasuusiyo idhiiriyo hamina igu beero dhaqankaaga wanaagsan hadalkaaga wanaagsan ammaan waad mutaysatayo saaxiib jannaa inoo ballanay maasha allah That's good. That's good.